Shirkadda Wadaag Investment waa shirkad maalgelineed oo laga aasaasay waddanka gudihiisa sanadkii tegay 2021 dabayaaqadiisii, taas oo xarunteeda guud ku taalo magaalada Hargeysa. Shirkaddan waxaa aasaasay 2 nin oo aqoon-yahan ah oo ganacsato ah isla markaana hanti badan ku leh waddanka. Shirkadda ujeedadeeda guud waxa weeye inay maalgeliso oo waddanka ka fuliso mashaariic fara badan oo ugu horeeyo caymisku, sidoo kale ay ugu muhiimsan yihiin kalluumaysiga, beeraha, xoolaha nool, tiknoolajiyadda iyo adeegyada aasaasiga, iyadoo xoogga saaraysa mashaariicda wax soo saarka ah ee dalka iyo dadka iyo maalgashadayaashaba faa'iidada u leh. Shirkaddu waxay iibinaysaa 10,000 oo saami, kuwaas oo ah 40% raasamaalka guud ee shirkadda. Maalgashaduhu wuxuu iibsan karaa ugu yaraan hal saami oo $170 ah, ugu badnaana 500 oo saami oo $85,000 ah. Shirkadda Wadaag Investment waxay ku dhisan tahay nidaam waafaqsan shareecada Islaamka ee suuban, iyadoo wada lahaanshaheedu ku salaysan yahay habka mushaarakada ah, oo ah in qof kasta oo shirkadda mulkiile ka noqonaya uu ku darsado hanti lacageed isagoo iibsanaya inta saami ee uu doonayo. Waxa ay shirkaddu soo saarto faa'iido ama khasaare waxaa loo qaybsan doonaa si sanadle ah, iyadoo lagu salaynayo qof kasta inta uu ku leeyahay boqolkiiba raasamaalka shirkadda. Qofka maalgashadaha ah waxaa looga baahan yahay inuu haysto aqoonsi sida ID card, passport ama wax la mid ah, iyo weliba sawir kur ah. Wixii faahfaahin ah nagala soo xidhiidh telefoonnada shaashadda kaaga muuqda.